بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxaa la dhahdaa maxamed guudle waxaan ka mid ahay macallimiinta jaamacadaha Somaliland ku yaala. waxaan jecelahay maanta inaan idinku soo gudbiyo barnaamijkan qaabka ugu wanaagsan ee looga shaqeeyo koox hawleedyada ama waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo group work. waxaan doonayaa markaa ardayda inaan waxoogay si fiican ugu faahfaahiyo wuxuu yahay marka hore koox hawleed ama group work, siyaabaha looga shaqeeyo group work ama koox hawleedyada iyo maaragtay mabaadi'da la raaco inta badan marka koox hawleed laga shaqeynayo. marka hore in loo wada shaqeeyo koox waxa weeyaan wax aad u muhiim ah waxbarashada guud ahaan, yani levelkii doonto ha ahaato ama heerkii doonto ha ahaato, ama jaamacad ha ahaato ama iskuul ha ahaato ama yani meel wax lagu baranayo ha ahaato, in la wada shaqeeyo oo koox la wada shaqeeya waa wax aad u muhiim ah. sidoo kale waxay muhiim u tahay waxbarashadu kaliya maaha, laakiin waxay muhiim u tahay sidoo kale in la wada shaqeeyo oo koox la wada shaqeeyo nolosha guud ahaanba. mashaariicda wada shaqeynta ama marka dadku ay koox wada shaqeynayaan waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay ee dadku ay ka faa'iidaan way aragnimo fara badan. arday fara badan sidoo kale waxay ku tahay maaragtay arrin aad u adag oo in la wada shaqeeyo aad bay ugu adag tahay. sidaas awgeed had iyo jeer waxaan ardayda ku dhiirigelinaa anagu inay koox koox uga wada shaqeeyaan oo shaqada loo diro matalan macalinku uu diro iskuulka ama jaamacaddaba inay koox kaga wada shaqeeyaan, taasoo aad muhiim u ah. haddaba halkan waxaan doonayaa inaan kusoo gudbiyo maanta dhowr qodob oo muhiim ah oo ku saabsan koox hawleedyada ama group work. waxaa jira mabaadi' muhiim ah oo si guud loo raaco marka la doonayo in la dhaqan geliyo in si kooxa loo wada shaqeeyo. waxaa la yidhahdaa waxbarashada ama in wax la wada barto si guud ama si koox ahaana in wax loo wada bartaa waxay keenaysaa in la share gareeyo ama la wadaago aqoon oo qofba qofka kale aqoontii uu u gudbiyo. waxa la wadaagaya waxa weeyaan waa aqoon, waxa la wadaagaya waxa weeyaan waa fikrado dhex mari doonta arday kala duwan, aqoontooda kala duwan tahay, heerarka waxbarashadoodu ay kala duwan yihiin. sidaas awgeed ayay muhiim u tahay in koox ahaan loo wada shaqeeyo. marka waxa muhiim ah haddaba marka hore laba mabda' baan doonaya inaan sheego marka ugu horeeya oo ah kuwa ugu muhiimsan marka la raacayo koox hawleedyada. ka koowaad, ardaygu waa inuu marka hore si hufan oo qurux badan uu usoo gudbin karo fikirkiisa, uuna u gudbin karo ardayda kale. yani fikirkaaga inaad la cabsato ama qariso maaha, waa inaad si qurux badan aad u gudbiso oo martay asxaabta aad ugu gudbiso iyo dadka kale ee martan ardayda aad wada shaqeynaysaan. waa mabda'a koowaad. mabda'a labaad waxa weeyaan in la fidiyo aqoonta iyo in la wadaago fikradaha, in la fidiyo oo la balaariyo iyadana waxa weeyaan waa mabda'a labaad oo muhiim ah. labada mabda'a haddii qof kastaaba uu si fiican u fahmo waxa weeyaan ardaygaas wuxuu si wanaagsan u fahmay sida looga wada shaqeeyo koox hawleedyada. haddaba waxyaaba waxaa jira aasaasi u ah oo muhiim ay tahay in aynu fahamno markaan ka hadlayno koox hawleedyada. waxaa ka mid ah waxyaabaha af Ingiriisiga lagu yidhahdo interpersonal skills oo ah xirfadda isdhexgalka. yani waana muhiim xirfadda isdhexgalka. waa waxyaabaha inta badan qofka lagu qiimeeyo marka xataa jaamacad aad dhamaysid ee doonayso inaad shaqo gasho. waxyaabaha qofka lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah laguma qiimeeyo inta badan shahaadooyinka uu sito iyo darajooyinka uu keenay iyo aqoontiisu sida yahay. waxyaabaha kale muhiimka ee la qiimeeyo waxaa ka mid ah isdhexgalka. qofkani bulsho dhexgal ma leeyahay ama dadka ma dhexgeli kara. si aynu fahmno marka isdhexgalku muxuu yahay, waxaa muhiim ah inaynu fahmno in ardaydu ay si taban ama positive ah ay u wada shaqeeyaan, inay u wada xiriiraan si wanaagsan marka ay ku jiraan
koox hawleedyada ama wada shaqaynta ama markay ku jiraan shirarka ardaydu ay leeyihiin ama in qofkani uu leeyahay aqoon uu leeyahay dabeecad uu dadka kale ku fahmi karo uu dadka kale kula shaqayn karo marka lagu jiro shirarka iyo marka lagu jiro waxbarashada intaba sidoo kale waxaa muhiim ah in ardaygu fahmo oo koox hawleedyada waxyaabaha ugu muhiimsan ee markaa doonayna ka hadlay kamid ah in uu fahmo ardaygu xalinta khilaafka iyo in la wada hadli karo oo la samayn karo maanta tanaasulaad oo matalan haddii laba aragti lagu kala duwan yahay haddii ay jirto markaa uu qofka kale u tanaasulo oo aan maaragtay laysku murmin ama aan la murmin ayaa muhiima waxyaabaha kale muhiimka aan doonayo markaa inaan ku sheego barnaamijkan waxaa kamid ah in dad kala duwan oo aqoon kala duwan leh oo level kala duwan leh oo darajooyin kala duwan leh oo da-ahooda xataa ay kala duwan yihiin mararka qaarkood in meel la isugu keeno si ay u kala faa'iidaan ardayda jaamacadaha dhigataa ardayda dugsiyada sare dhigataa waa inay isku yimaadaan wax kala bartaan fikrada wadaagaan da-ahooda ha kala duwanaadaanbe ama aqoontoodaba ha kala duwanaato laakiinse waxa meesha muhiima ee la raadinaya waxa weeyaan isdhexgal iyo waxa la raadinaya waxa weeyaan aqoon dadku inay kala faa'iidaan waxaa kaloo markaa qodobada aan doonaya markaa inaan ka hadlo oo kaloo kamid ah xirfadda maamulka sida wax loo maamulayo gaar ahaan koox hawleedyada sidee loo maamulaa marka laga shaqeynayo koox hawleed ama group work sidee loo maamulaa marka hore waa in group kasta ay leeyihiin ujeedooyin cadcad oo ay gaadhaan oo ayna jiraan waxa la idhahdo target goals oo ah ujeedo groupkaasi ay doonayaan inay ka dhabeeyaan muddadii doontaba ku gaadho ujeedo ay doonayaan inay ku gaadhaan bil 2 bilood 3 bilood sanad iyo wixii lamid ah sidoo kale waa in shaqooyinku ay kala qaybsan yihiin oo wixii la qabanaya maalin walba shaqo loo balansan yahay qorshe waa inuu jiraa qorshahaas oo ah in la leeyahay jadwallo iyo waxa la idhahdo maaragtay deadlines in la maamulo group work fikirka in la maamulo ayaa sida iyaduna muhiima waxaan doonaya markaa inaan barnaamijkan kusoo gabagabeeyo xirfadaha isdhexgalka waxyaabaha ugu muhiimsan ee markaa ardaydu inay raacaan ay tahay waxaa kamid ah inay leeyihiin ujeedooyin ama clear objectives waxaa kaloo muhiima oo ay tahay ardaydu inay markay isdhexgalka ama koox hawleedyada ay ka shaqaynayaan inay samaystaan waxa la idhahdo shuruuc ama xeerar la wada ogyahay oo qof kastaaba si fiican uga dharagsan yahay in si fiican oo nadiifa loo wada xidhiidho oo hadalka la isku weydaarsado in la kala leeyahay doorar oo matalan qof walba door gaar uu leeyahay qof mas-uula qof ku-xigeena qofba wax uu qaabilsan yahay maaha in la isku dhex daadsanaado waxa muhiima in la kala leeyahay doorar muhiima in wax laga midaysan yahay uu jiro dadkan ay isugu yimaadeen haddii aanu jirin wax laga midaysan dadkan ay isugu yimaadeen shaqadii lama qabanayo in la caddeeyo qof walba fikirkiisa iyo go-aankiisa uu si fiican u sheego in record la sameeyo wax kasta la diiwaangeliyo oo wixii la qabtaba in balaankii iyo qorshihii lagu dheganaado oo aan laga gudbin in la dabeetana la monitor gareeyo ama dib loo eego maxaa la dhahdaa hawl socodka maxaynu qabanay bishii hore maanta maxaynu qabanaynaa maxaynoo qorshaysan marka aad iyo aad ba mahadsantihiin intaasaan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu